munaasabadan oo ahayd mid lagu daafurayo jaamacad cusub oo lagu magacaabo Nile University ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne. Daafurka munaasabada jaamacadda Nile University waxaa ka qayb galay macallimiin, aqoonyahanno, maamulka jaamacadda Nile iyo qaybaha bulshada Beledweyne. Macallimiin iyo aqoonyahanno kala duwan oo ka qayb galay daafurka cusub ee jaamacadda Nile ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in jaamacaddan ay ka mid noqoto jaamacadihii hore ugu yiilay magaalada, waxaana ay sheegeen in wax badan ay ka rajaynayaan in jaamacaddan ay ku soo kordhiso magaalada Beledweyne. ardada aanan awoodin inay iska bixiyaan fiigii jaamacadda in aad maaragtay ku taakuleysaan. waxaan kaloo rabaa inaan maaragtay aan kelmad ka yidhaahdo xagga waxbarashada. sida aad ogsantihiinba waxbarashadu waa shay aad iyo aad muhiim u ah nolosha bini'aadanka, dabcan faa'iido weyn ka qaadanaya ama aad iyo aad muhiim u ah. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. dadka wax bartay iyo dadka waxbaran ma isku leeyihiin oo ma isku egyihiin, ma siman yihiin? jawaabtu waxay noqonaysaa marka waa maya. sidaa darteed waxbarashadu waa shay aad iyo aad muhiim u ah. طبعا waxaan soo dhaweynaynaa guud ahaan beeritaanka ay ku soo biirtay jaamacadda Nile University gobolka Hiiraan degmada Beledweyne. علينا يسود هذا سوى كلام مبارينا إني تلابد اللبات إكاديكان فريتان كي ديكتيب قبل كي برانجي اللبات إكفوران قبل هذا إني كوسا بران قبل كي إيران تجمد بردوينه أيضا وحلنا هاي وكنا سنتين. macallimiin ajaanib ah oo u dhashay dalka Uganda waxna ka dhigi doona jaamacadda Nile ayaa dhankooda munaasabada ka hadlay. Really, most of the information has been passed on to you. For example, the programs we are going to offer at Nile University. We come from Kampala, Uganda, and we are purely academicians. Basically me, I've been lecturing in different institutions in Uganda for more than 20 years. So I was brought here in Somalia by a colleague of mine. Unfortunately, he's not here in Somalia. He left for Canada. But Alhamdulillah, I'm still here at Green Hope, rather at Nile University. maamulaha jaamacadda Nile Engineer Maxamed Xaanshi Rooble ayaa ka warramay jaamacaddan iyo ahmiyadda ay dadka Beledweyne u leedahay. qaybaha kala duwan sida caafimaadka, dhaqaalaha, maamulka iyo maareynta. jaamacadda Nile waxay xiriir waxbarasho la leedahay oo heerka master degree ah jaamacado kale oo dibadda ku yaala. waxay u ballan qaadaysaa ardayda ama qof kasta oo danaynaya inuu barto inuu heli doono aqoon waxbarasho isagoo jooga dalkiisa, siba magaaladiisa uu joogo, si gaar ah magaalada Beledweyne. macallimiinta jaamacadda Nile daan soo galay waxay isugu jiraan Soomaali iyo ajnabi, khibrad u leh, aqoon u leh, xirfad u leh waxa ay dhigayaan. jaamacaddu macallimiinteedu iyo maamulkeeduba waxay ka wada shaqayn doonaan labada xarumood ee ay ku leedahay labada gobol ee Banaadir iyo Hiiraan, si gaar ah magaalada Muqdisho iyo magaalada Beledweyne. jaamacadda Nile waxay kala bixin doontaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo qaybta luqadaha Englishka, si gaar ah dadka degdegta ugu baahan diblooma. waxayna u ballan qaadaysaa inay heli doonaan tayo xagga luqadda ah oo insha Allah ay uga maarmi doonaan inay wadamo kale u aadaan si ay u soo bartaan.